waxaa maalintii arbacada ahayd ee bishii ahayd 26 March laga sii daayay xafiiska TV-ga Universal ku leeyahay magaalada Muqdisho raali gelin ku aadan barnaamij ka baxay faaliyaha qaranka barnaamijkaas oo lagu soo qaaday hadal ka dhana bahda ethics saxaafadda oo laga hadlayo wasiirka warfaafinta Soomaaliland shirka uu galay markaas maamulka sare TV-ga wuxuu ka bixiyay raali gelin buuxda waxaan kaloo sidoo kale raali gelin buuxda ka bixinay maxay ahayd toy waraysiga madaxweynaha Soomaaliland ay ku baxay muddo hore barnaamijka faaliyaha qaranka haddaba raali gelintaas waxaa laga istaayay shalayto idaacadda Radio Hargeysa taasoo noo muujinaysa inay fariinta gaadhay xukuumadda Soomaaliland taasina waa arrin runtii wax koola oo tusaysa in macni xukuumaddu ay gaadhay fariintii samar ahaantaasna aan u arko inay tahay mid wax weyn ka qaban doonta dhibaatada ka dhex dhacday TV-ga Universal iyo Soomaaliland